safarkii madaxweynuhu ku tagay toddobaadkan gudihiisa gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama iyo Dila madaxweynuhu waxa uu la kulmay madax dhaqameedkii gobolkan xiisad baa ka taagneed bal arinta bal warbixin kooban naga sii bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baad mahadsantihiin de madaxweynuhu shaqo caadi oo joogto ahaan jirtay muddo badan ayuu de gobolka u tagay oo qalinsaminta difcadii 19aad ee jaamacadda Amuud ilaa madaxweyne Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal sidaas ahayd waxa ku yeeraysaa moogtay madaxweynayaashu markay de tagayaan xafladda qalinsaminta de si caadi ah bay u tagi jireen shaqo caadi ah hawl maalmeed kamid ahayd maalintii dhaweytoole waxoogaa iska xafiltankii siyaasadeed de in maartay soo dhaweyn iyo durbaan iyo waxba tasaayid ku ahaa runtiina halkaana de Dila waxoogaa soo dhaweynay way ka dhacday laakiin magaalada kale Boorama cidee soo dhaweynaysa oo shacbiya ma arkin laakiin dadkii dawladda ka tirsanaa shaqaalihii dawladda iyo madax dhaqameedkii way ka hor yimaadeen taasina waa tacwa caadi oo protocol madaxweyne weeyaan laakiin soo dhaweyntii shacbiga ahayd ay ra'yigooda ku talagalka ahayd in la helo oo number of population ka magaaladu inay soo baxaan oo taageerada muujiyaan kaasi magaalada Boorama kama muuqaniga sawirada iyo fiidiyoyada iyo muuqaaladeen daawaday igama muuqan arinta de doorashooyinka iyo doodooda halkii bay taala wax iska bedelayna ma jiro ilaa imkana anagu ra'yigaanu qabno wax weeyaan warde doorashada wax weeyaan de sandulla de doorashada lagu galaya de anagu xal iyo aqli uma aragnaday su'aashaad weydiiso kulanka madaxweynaha iyo odayaashu ay yeesheen ilaa inta ka warqabay imika odayaasha dhaqanka wala kulmay aqoonyahankan wala kulmay gobolka aqoonyahanku waxa ku yiraahdeen doorashadu kala madaxweynaha ku yiraahdeen wax doorasho anagu aan ballan qaadi karnaa ma jirto ilaa iyo dadku ay reewadlinta isku noqdaan dib u tashadaan oo talada bal soo saaro anagu waxba ballan qaadi karno odayaashuna waxa ku yiraahdeen mowqifka iyagu wuxuu ku cad yahay madaxweyne baaqi maalintii soo saarnay anagu isku dhan anaga iyo xildhibaanada dhalinyarada aqoonyahanka ayuu mowqifka iyagu halkii buu taagay ada xal laga sugaya madaxweyne marka wali kubaddu madaxweynaha la taala marka de wuxuu isugu yeelayo inkastoo de madaxweynuhu isagu xal raadinayo oo meel kasta uu leeyahay xal baa la doonaya dadkii waxa la weydiinaya ardaydu waxa la weydiinaya ma fahamtay de in isaga xalka laga doonayay de inuu xalkii keeno oo yiraahdo de wax weeyaan de maanta de iska makrafo diblomaasi socdo moogtay de sidii jaamacadda uga hadlayay wax inta dhaafsano go'aano uu meesha la tago ilaa imika uu sheegana ma jirto aan ugu hayn laakiin siyaasi wax la leeyahay wasiirka wasaaradda ganacsiga oo hadda loo magacaabay gudoomiyaha afraad xisbiga kulmiye in dadaalo uu wado waxay keeni karaan in beesha ay ama ay gobolka Awdal tabashadii dib u dhigo taasadi ma ku muuqata de madaxweynaha wasiirka madaxweynaha ka sareeyay arinta madaxweynaha laga diiday wasiir laga aqbalaya aniga lama haday arin madaxweyne laga diiday ayaa wasiir laga aqbalaya taas waa de wax suurtagal ma haday ma fahamtay hadii cid wax laga aqbalayo oo cid wax laga dhageysanayo oo cid wax lagu ixtiraamayo aniga waxay la muuqataa in madaxweynaha wax laga dhageysto wax lagu ixtiraamay laakiin de wasiiradiisu de waa madaxweyne bay kamid yihiin laakiin reer Awdal waxay ku diidayaan in doorkanta doorasho la galo wixii tabasho ay qabaan iyo wixii arrimaha saamayn qaybsiga gadaal laga wada hadlo de reer Awdal doorashada ma diidana doorashaduna dalka de faa'iido badan baa ku jirta golaha muddo badan buu fadhiyay laakiin de waa in doorashada de waa in wax isla ogolba doorasho lagu galaaday imika 2005 markii doorashada la galiyay de sida loo qeybiyay sidii saxda ahayd mahayna lagu qanacsanaayo cadaaladda ahayd mahayn laakiin ogolaasho isfaham isla ogola ayaa doorasho lagu galay maanta laga waxa muuqata macnaha maxay sheegayaan sadulla lagu galay doorashada de cidna lama sudulay karo Soomaaliland isma sudulay karo laakiin aqli iyo xal waa la keeni karaa madaxweynuhu talo uu keeni karaa iyo fikir ama habdis lagu wada qanacsayo kaasoo kala lamida uu keeni karaa kii laftiisu dadku qancin karaa ma fahamtay laakiin de waxa meesha saa'idka ku waxa weeyaan in inta halkan saddex xisbi ka fadhiistaan iyagoon cidna la tashan iyagoon odhanin war walaalayaal de aynu daarkii ka wada hadlan iyagoon dhan doorasho la geliyaa de ilaa imkana tiibu madaxweynuhu ku taagan yahay oo ka mikrafoonka ka hadlayay doorashadii sabal iyadoo wax la buu doonin marka waxa weeyaan reer doorashada inay dhacdo ma diidan laakiin wax la wareeyay deef waxaynu isla garanay heshiis baa ka yaalay doorashada noocan hore wax loo qeybiyay oo maanta kaliya lagu galiyaa bal de wax lagu bedelo keen madaxweyne hay ama de
xisaab kalaba keenoo dee doorashadii lagu galay inta la leeyahay inta wax dhibaato kale ma jirto madaxweynaha lama necba oo madaxweynaha qaranka ma aragtay waqtigiisa iyo sharci baa lagu doortay dadkii doortay baa ka mid nahay waqtigiisa inuu si sharciyo oo deganaana oo wanaagsan u dhamaysto baanu jecelnahay wax kale oo dhibaato la isku hayaana ma jirto inta doorashada hayni maxamed laakiin waxa la sheegayaa bulshada ku dhaqan gobolka Awdal iyo madax dhaqameedkeeduba arintan tabashada ee gobolka ka jirta way ku kala qaybsan yihiin arinta maxaa ka jira waa run taasi de qayb la doorashada de la galo substation uu madaxweynuhu de ka sameystay baa jiray de waa madaxweyne de ninkii moogta substation isku dawa shaqeynayaan laakiin numberka weyn ee ma aragtay shacbiga iyo dadka de badankoodu de arrinka doorashada de waa isku mowqif fiikayeen intooda ugu badan laakiin arinta doorashadu maadaama oo la sheegay in Soomaaliland guul u tahay in gobolka Awdal uu ku raaco Soomaaliland maadaama oo qaranka ay muddo badan soo dhisayeen taasi ma aanay u muuqanin gobolka waxa la diidan yahay waa u muuqataa laakiin car iyo wirta ma aragtay halkan maxay sheegayaan iyo sindulan ku marsiinada isficish baa meesha yaalade taladiidiya waa taade hadii Soomaaliland ka lafteeda ay aqli dhaama aqligan madaxtooyada yaala hayso taatigan gobolka ay maadana ay yiraahdaan warta waxayna ka wada hadalna